lacagahan dulmar ku samayn doonaa si aan u ogaano marka anoo ku base gareynayo labadii istiraatiijiyad haddaa idiin soo sheegay oo ahaa istiraatiijiyadda Falcon iyo istiraatiijiyadii ninka odayga ah oo loo yaqaanay Nike ama transparent saa u taqaanaan lacagta tan hadda aad aragtaan waxaa weeyaan lacagta loo yaqaano AUD card Australian iyo Canadian dollar waaye tusaaleaan markii analyze la sameynayo waxaa fiican inaad ka soo qaadato maxaa la yiraahdaa dailyga iyo weeklyga aad soo fiiriso then markaad soo ogaato weeklyga iyo dailyga waxa ay ku sheegayaan waxaad ula soo guuri doontaa ama aad la imaan doontaa maxaa la yiraahdaa high time low time frame-ka si aad maxaa la yiraahdaa entry fiican aad ugu raadsato entry-ga ugu habboonna waxaa laga helaa 4 saac laga qaataa iyo 1 saac marka lacagtan marka hadii aan xoogaha ku dul cararo waxa aragtaan lacagtan inay sameynayso wax loo yaqaano ay ku jirto markii ugu dambeysay ay ka soo dhamaanayso maxaa la yiraahdaa meeshii ugu sareysay ee gaartay ee bayga ahaa sidoo kale lacagta ay hadda ku jirta nasasho qaybta ay sameysanayso double top-ka loo yaqaano oo bartan double top-ka kaaga muuqdo ay soo sameysato waa weeklyga then waxay lacagta soo sameysanaysaa maxaa la yiraahdaa nasasho labaad oo inay soo taabato maxaa la yiraahdaa isku dayaysaa triple top oo kale inay sameysato isku dayaysaa weeklyga dailyga ay nimaana marka dailyga marka imaadid waxa meeshaan inooga muuqdo waxaan ku hormari doonaa transparent ninka la yiraahdo ayaan ku hormari doonaa istiraatiijiyadiisa transparent wuxuu isticmaalaa W button iyo M button wax W button-ka waxa weeyaan noocan W button-ka waxaa la lahaa markii W button-ka uu sameysmo qaab noocaana ayuu u sameysmaa sida oo kale ayuu u sameysmaa this is the W button then wuxuu soo qaataa entry-ga bartaan ayuu ka soo qaataa ilaa iyo wuxuu la soo socdaa iyo ilaa iyo bartaan ayuu la soo socdaa sidoo kale Falcon strategy-na waa same isagana ascending ahaan ayuu ugu tireeyaa marka lacagtan dailyga waxay inoo sheegaysaa oo qof walba uu arki karaa inay sameysato wax loo yaqaano double top inay sameysato bartaa waxay sameysatay double top aad u qurux badan ay sameysatay markii double top-kan ay sameysatay lacagta waxay ku tagtay top-ka labaad ama taabashada labaad qaab waxay ku tagtay ascending ahaan ayay ku tagtay waa Falcon strategy nooca isticmaaleyna then markii ay ku tagtay waxay sameysay waad aragtaa ascending qurux badan ayay ku tagtay then waxaa la sugayaa inay lacagtan ay soo dhacdo ee hoos u dhac ay soo sameyso taabashadii koowaad iyo taabashadii labaad si qurux badan waa aragtaa then lacagtan waxaa laga sugayaa inay soo sameyso soo dhicis ilaa iyo 90% rolliska oo ay soo dhacday ilaa iyo 90% barta inay imaado expectation-ka laga qabo then lacagtan markii aan u fiirino dhinaca kalena waxay inoo sameynaysaa wax loo yaqaano W button lacagta markii ay sameynayso inta badan waxay ku soo laabataa san hadaa idin sheegay W button markii ay sameysato lacagta waxay sameysaa soo laabasho ilaa iyo neckline-kan ayay ku soo laabataa lacagta marka waxa way fursad ah kor in laga soo qaato bartan ilaa iyo neckline-kan laga faa'iideysto laba confirmation ah haysata oo ah inay lacagta markii koowaad ay kuugu tagtay 3 taabasho bartana ee loo yaqaan ascending sidoo kale istiraatiijiyada kale hadaan ku base gareyno waxaad haysataa W button oo bartaan ah oo aad u jeedid inay lacagtan ku soo laaban doonto neckline-ka kan inta aysan aadin buy-ga laga filayo because of structure-kan waxaa ka koreeyay structure kale ayaa ka koreeyay oo bartaan ah waa probability loo badinayo lacagta inay soo jobsato ay korkan imaado waa macquul waa aqligal weyna aadi kartaa dailyga wax laga sugayo sidoo kale lacagtan waxaa arkaysaa lacagta markii ay dhaqaaqayso waxaan ku base gareynaynaa bibinaaji ahaan waxay ku dhaqaaqdaa high iyo high low wax loo yaqaano waxaad aragtaa meeshan waa lowgi ugu dambeeyay intaana bibinaajiga isticmaalin bartan waxaa aragtaa waa lowgi ugu dambeeyay bartan lowgaana ka sii sareeya waxaa la sugayaa low kale oo bartaana inuu sameyso calaashaan waxaad aragtaa low high sidoo kale waxaa la sugayaa high low kale inuu inta ka dhaco bartan waxaa aragtaa korkan waxaa ka sii koreeyay kor kale hoostan hoos ka sii sareyso bartan ma jirto waa hoosta hadda aan sugeyno oo bartan inay imaado la doonayo marka saas darteeda expectation-ku ugu dheer bartan ayuu noqonayaa lacagtan laga sugayo inay imaado ilaa iyo bartan meesha ugu badan ee lacagtan ay imaanayso waxay noqonaysaa ilaa iyo bartan haddii xitaa ay buy aadayso waxay ku qasban tahay bartan inay imaado then ilaa iyo waxaa ka faa'iideysan doontaa meeshan hadda ay marayso ilaa iyo 140ka 3 diib waa nadiif waa ka heli doontaa adoo ku base gareynaya istiraatiijiyadaada iyo aragtiyadaada kala duwan markii aan qaabkan u analyze gareyno waxaan la tegi doonaa qaybta 4 saac ayaan ka fiirinayna si aan u ogaano waxa aan sheegayno inay yihiin wax saxan ama wax qaldan
okay afarta sac markii aan nimaano waxaad aragtaa lacagta tan almost inay soo daadatay ay ka soo laabatay structure-kii hadda aan ka sugeynay oo ahaa double top waxaan ku soo base garaynay istiraatiijiyad sax ah oo laba istiraatiijiye ah oo saddex taabasho ah ee ascending journal noogu soo sameysay oo aad aragtid bartan ah taabashada koowaad oo tan ah iyo taabashada labaad oo kuu muuqata iyadana iyo taabashada saddexaad oo iyadana ay nooga sameysay qaybtaas hore adna kuu muuqata aad arki kartid dan lacagta waxay soo sameysay pattern within pattern wax loo yaqaano oo macnaheedu yahay naqshad ku dhex samaysan naqshad kale waxaad aragtaa bartan naqshadan inay ku dhex samaysan tahay naqshad kale lacagtan ku kaliftay inay soo dhacdo naqshada kale waa another ascending journal waad aragtaa bartan ascending journal kale ka dhacay oo lacagtan ku kaliftay inay lacagta soo kala wareegto ay hoos u soo dhacdo ama hoos u dhac ay soo samayso then ascending kan ku jira then wuu laabtay wuxuu soo sameeyay another small double top wax loo yaqaano another small double top wax loo yaqaano ayuu soo sameeyay marka adoo expectation-ka guud waa haysataa oo daily-ga ah waxaa muhiim ah marka inaad ku base garaysid waxa lacagtan laga filayo hadda inay samayso lacagtan waxaan ka filaynaa niri inay bartan ku soo laabato hadda bartan marka meeshan focus-ka aan isla saarna aniga dhan aan isla fiirino meeshan hadda aan idin zoom garayn doono isha aan iskula hayno bartan hadda aad aragtid markaan zoom gareeyo waa afarta sac bartan focus-ka aan isla saarno meeshan waxaa aragtaa inay ka samaysatay mini double top wax loo yaqaano isla mini double top-ki ayay ka soo dhacday candle koowaad candle labaad waxay ku soo dhacday laba candle oo xooggan ayay soo samaysay labada candle ee xooggan automatically meeshan waxaa ka muuqdo W kale ayaa ka muuqda waxaa macquul ah lacagta inay kor aado oo mar labaad ay kor sii aado because of neckline lacagtan waxay marka nadiif kuu noqonaysaa in haddii aad qaadanayso oo entry aad samaynayso waxaad samaynaysaa ascending journal-kan meesha kaaga muuqdo automatically waa soo raraysaa kan intaa keensanaysaa kanna bartan ayaad dhiganaysaa si qurux badan sidoo kale midkanna waa soo raraysaa isagana intaa iskugu keenaysaa dan waxaa aragtaa lacagtan sawirka labaad ee kaaga muuqdo ayaad isha ku haynaysaa sawirka labaad oo kaaga muuqdo meeshan waxaa weeyaan lacagtan inay samaysanayso inay soo dhacayso ay inta kasoo samaysan doonto almost in saddex taabashay ka samaysay waa sababta dhicistan ku kaliftay dhicistan lacagta kor u kaca ay samayso ku kalifto weeyaan marka waxaad sugaysaa lacagtan ilaa ay kasoo jabsanayso eriyada tan ilaa ay kasoo dhexbixayso haddii aad rabtid sel qurux badan inaad ka heshid waxaad sugaysaa inay eriyada tan kasoo baxdo eriyadan haddii ay kasoo baxdo lacagtan waxaa kaaga muuqanaysa fursad aad u qurux badan haddii inta mar ay soo jabsato laabashadan inta ay ku laabanaysaa kasoo qaadanaysaa ilaa iyo waxaa la soconaysaa structure-kan lacagtaas nadiif ayay ku noqonaysaa oo Australian Canadian-ka la rabo waa barta inay kusoo laabato la rabo marka waxaa weeyaan lacagtan hadda Australian Canadian waxaan filayaa inay kaaga baxday aragti guud oo aad fahmi karto waxa ay lacagtan samaynayso labada istiraatiijiye anagoo ku beesgalayno waxaan fiirin doonaa marka lacaga xiga I hope haddii ay jiraan asxaab kale oo lacag ku jirto codkayga horta ma la maqlaa codkayga si fiican ma maqashaan haddii codkayga mar aad maqashaan asxaabay wan ii soo qora haddii lacaga kale aad ku jirtaan aan fiirinayna waad ila soo wadaagi kartaan waxaan rabaa inaan dul istaago lacag kale hadday aan soo diray oo GBP NZD ahayd codkayga ma la maqlaa saaxiibayaan haddii codkayga aad maqashaan fadlan wan ii soo qora wan ii soo qora haddii codkayga nadiif uu yahay wan ii soo qora codkayga ma maqashaan asxaabay aad iyo aad ayib waa mahadsan saaxiib okay aad u mahadsantihiin saaxiibayaal aan horey ugu sii socono ka raali noqdo haddii codkayga uu idin soo gaari lahaa xoogaha waa xariibsanahay GBP NZD aan isla fiirina marka GBP NZD ayaan fiirin doonaa lacagtan lacag aan haddaay diyaariyo waayo shalay aan iraahday shalay miya mise axadii aan diyaariyey I hope tabti aan u diyaariyay ku socotaa oo buy ayay ku sii socotaa AUDCHF ayuu yiri AUDCHF waa fiirinayaa saaxiib iyadaan kuu fiirin doonaa AUDCHF aragtida ka qabtid iyo aragtideeda hadda isku beesgaraysanaysaa then AUDCHF waxa aad ka hesho waxay la soo wadaagi kartaa AUDCHF okay AUDCHF waxa aan ka filayno iyo qaabka ay tahay waxaan kula dhaqaaqi doonaa analyze guud aan ka sameyn doonaa AUDCHF then aragtidaada hadhow ku darso AUDCHF aad u mahadsantahay daily-ga laga soo bilaabaa analyze-ka markii la sameynayo daily-ga horaan kugu sheegay daily-ga laga soo bilaabaa
AUD aan ka dhamaanayna kadib aan fiirinayna dailyga weeklygan soo fiirinayna marka koowaad weeklyga markaan soo fiirino waxaan ogaanaynaa lacagtan waxa ay sameynayso lacagtan waxa ay sameynayso lacagtan waxa aragtaa inay sameysay lacagta tan sel xoogan inay u soo dhacday oo selkaana waxa waaye waxa kalifay iyo sababta ay ku soo dhacday intaba waan isla dul istaagi doonaa waana isla fiirin doonaa lacagtan selkan waxa kalifay wax loo yaqaano bartaana waxay ka soo sameysatay double top wax loo yaqaano qofkii fahmaya bartaana waxay ka soo sameysatay double top ay soo sameysatay double top maxaa weeyaan double top waa laba taabasho ay soo sameysay waa weeklyga meeshan joogo si fiican ay la socdo labadan taabasho sababta ay ku soo dhacdo waxa waaye suuqa intii ugu dambeysay bilihii la soo dhaafay suuqa kor ayuu ku sii socday marka lacagtan waxa aragtaa inay soo dhicis soo sameynayso ay soo socto marka hal mar waxaan ku laabanaa monthly-gan fiirinaynaa monthly-ga si aan u ogaano monthly-ga waxa ka jiro okay monthly-ga aan fiirino marka monthly-ga markaan nimaano waxa aragtaa monthly-gii inuu isagana sheegayo isla double top-ki inuu sameynayo oh sorry lacagta aan ku jiro gold waa iga raali nabada lacagtaan rabay inaan fiiriyo waxay ahayd gold waa lacagtaan ku jiro lacagtaan rabay inaan fiiriyo AUD CHF OUD CHF sorry saaxib OUD CHF OUD CHF OUD CHF lacagta صح waa صح OUD CHF 1 monthly aan joognaa weeklyga noo celi weeklyga waxaan aragnaa lacagtan saaxiib inay soo sameyso maxaa la yiraahdaa weeklyga waxaan aragnaa lacagtan inay sameynayso dhaqaaq buy ah kadibna ay sameysay nasasho ay ku jirto ama consolidation wax loo yaqaano ay lacagtan ku jirto weeklyga expectation-ka aan ka qaadanayno waa taas anaa marka la faguri doono waxa waaye waxay ku jirtaa consolidation ay ku jirtaa ama nasasho ku jirtaa dan lacagta dhaqaaqay rabtaa inay sameyso dan waxaan sameynaynaa waxaan imaan doonaa dailyga imaanaynaa dailyga waxaa kaaga muuqda saaxiib saad u jeedid triple top wax loo yaqaano ama saddex taabasho ayay soo sameyso waxaan ku base garayn doonaa laba istiraatiiji aan ku base garayn doonaa labadii istiraatiiji aan ku base garayn doonaa waxay noqonaysaa midna midka falcon midna waa midka yarkii aan idin sheegayo la dhahayay transparent ama ninka loo yaqaano lacagta marka aan ku hormaro maxaa la lahaa istiraatiijiyada haddaan ku hormaro lacagtan waxay sameysatay saddex taabasho balaas waxay sameysatay double top wax loo yaqaano saddex taabasho balaas double top ayay sameysatay lacagtan waxay sameysay taabasho bartaana koow markii inta ay imaaday taabashadan labaad si qurux badan ayay u soo dhacdo waa tan aad arki kartid sidoo kale hadda bartaan ayay u soo socotaa marka lacagta waxaa la qiyaasayaa xoogaha yar sare u kac yar inuu ku dhiman yahay soo kacda dailyga siduu noo sheegayo lacagta marka meesha focuska aan saarayno wuxuu noqonayaa labadan meel ayay noqonaysaa keliya bartaan iyo bartaan lacagta bartaan maxay ka sameynaysaa marka aan isla fiirino focuska si fiican aan u saaro waxaan rabaa analyze-ka guud fikir inaan kaa siiyo then lacagtan waxaa aragtaa bartaan inay kaga jirto rafasho ama consolidation wax loo yaqaano ee lacagta isku diyaarinaysa dhaqaaq inay sameyso dhaqaaqa sameysay laakiin waxaa qasaba lacagta inay u diyaarsan tahay maxaa la yiraahdaa lacag sel ah lacagtan sel ay soo aadaysaa laakiin waxay ku qasban tahay inay area tan ka soo laabato barta tan area-dan inay ka soo laabato haddii ay jabsatona jihada guud ayay bedelanaysaa laakiin area-dan waa meesha la expect garaynayo inay ka soo dhacdo because of area-daas waa area aad maxaa la yiraahdaa dhowr jeer looga soo celceliyay lacagta saddex jeer iyo ka badan laga soo celiyay استراتيجيتان ninka isticmaalaya waxa weeyaan istiraatiijiyadiisa isticmaalaya marka isaga wuxuu fiiriyaa meelaha dhowr jeer lacagta gaartay kadibna wuxuu fiiriyaa meelaha ay ka soo laaban karto lacagtan tusaale marka wuxuu isticmaalaa badbanaaji waa ku tusi doonaa lacagtan waxa aragtaa meeshan ayaa la rabaa inay ku soo laabato soo laabashada haddii aad lacagtan ka faa'iideysanaysid fikirkeyga Cabdulqaadir ahaan lacagtan waxay ku wanaagsan tahay markii labadan mid ay ka soo dhaxbaxdo inaad qaadatid lacagtan oo ilaa iyo neckline-kan bartaan ku jira WBC-ga bartaan W-ga aan yiraahday bartaan kaaga muuqdo aad ugu faa'iideysatid lacagtan ilaa iyo aad ka soo qaadatid ilaa iyo bartaas laakiin hadda waxa ay sameynayso waxay ku jirtaa rafashay ku jirtaa rafashadeedana waxaan qiyaasayaa ilaa iyo inta inay buy gaari doonto buy markii ay gaarto
dan lacagta waxa la qiyaasaya bartaan inay kasoo laabato haddii aad rabtid sel ahaan horta sel waa u diyaarsan tahay bartaan haddii ay gaarto sel ilaa iyo inta waad soo qaadan kartaa laakiin waxay macaan tahay haddii bartaan mar ay soo jabsato soo laabashadii structure-kan ay kusoo laabanayso in laga soo qaato ilaa iyo intaas lala soo saaro marka waxaan u gudbaynaa istiraatiijiyadii la dhahayo falcon aan ku fiirin doonaa trade line iyo waxyaalahaas aan isticmaalaynaa lacagtan waxaa aragtaa sida caadiga ah trade line markii la sawiranayo waxaa saxa trade line-ka inaad meelaha ugu sareeyo suuqa iyo meelaha laga soo celiyo aad calaamaysatid waxaad aragtaa trade line-ka markaan isticmaalayno double top-kan ayaan sugaynaa double top-kan sidoo kale lacagta meesha ugu sareysay ee gaartay meesha ugu hooseysana waa bartaan meeshan waxaa lagu yimaada qaab rafasho ah ay ku imaada lacagta oo qaab waxay ku imaada descending channel loo yaqaano saad arki kartid bartaas descending channel ay ku imaada lacagta descending channel-ka markii ay bartaa ku imaaday way jabsatay lacagta si qurux badan ay u jabsatay waxaa laga sugayaa marka lacagta inay soo dhacdo ilaa iyo ay imaado zonka kan inay imaado meelahan ilaa iyo zonka inay kusoo laabto ay inta ka samaysato double bottom marka 4 saac aan fiirino 4 saac markaan fiirino ayaan ogaanaynaa waxa saxda ah ee lacagtan ku jiro ama waxa ay samaynayso 4 saac waxaa aragtaa wixii aan soo sawirnay ayaan ku lafa guri doonaa 4 saac saddexda taabasho oo hoose ee descending channel-kaas si fiican u samayso kana update gareyso time walbaad maadid waxa fiican inaad update gareyso maxaa la yiraahdaa trade line-kaaga dhowr istiraatiijiyo waaye istiraatiijiyadan waa falcon ay isticmaalo trade line-kan iyo waxyaalahan iyadana waa patterns lagu ogaadaa anyway waxaa aragnaa marka lacagtan inay double top-kan ku dhex rafanayso la sugayo lacagtan inay soo dhicis samayso double top-ka waxaa ku sii dhex jira double top kaloo yar ayaa ku sii dhex jira bartaas aad aragtay marka lacagta waxaa macquul ah bartan hadda ay marayso almost waa ay kasoo dhacday kan dalweyna kasoo dhacay laakiin waxaa macquul ah inay laabasho samayso laabashada ay samayso waxaad sugaysaa marka ilaa ay kasoo jabsanayso baatanka meeshan kaaga muuqdo lacagtan waxay usoo socotaa inay bartaan imaado ayay rabtaa lacagta tan because of meeshan waxay ka samaysanaysaa saddexdan taabasho waa ay soo buuxiso almost ascending channel-kaas way samaysatay waad aragtaa ascending channel-kale ay samaysatay inta marka haddii aan inta isku qabsano okay waxay samaysay 1 iyo 2 iyo 3 soo dhicista waxaa macquul ah inta inay imaado oo waxaa la sugayaa lacagtan ilaa iyo inta inay imaado inta haddii ay imaado it's okay haddii ay soo jabsato waxaad ka qaadanaysaa next flag-ga ka qaadanaysaa hoos ayaa usii raacaysaa saaxiib waxaan filayaa fikirkeyga inuu wax un kugu ziyaadiyey lacagtan waxaan ka filaynaa inay soo dhacdo laakiin soo dhicis dheer aan ahayn ilaa bartaan ay imaado kadibna ay laabato double top iyo waxyaalo noocaas kale ay samayso kadibna ay aada u mahadsan tahay AUD ayaan sharxayaa lacagta kale aan rabtaan inaan fiiriyo ayuub waxaan filaa saaxiib inaad si fiican ugu qanacday lacagta kale aad rabtaan inaan idin fiiriyo qofkii ku jira hadday dalbanaya maxay ahayd GBP CHF ayuu soo qorayaa GBP CHF okay GBP CHF aan fiirinaynaa iyo GBP JPY aada u mahadsan saaxiib ayuub asku leenahay fikir un baan isweydaarsanayna waa loo baahan yahay sometimes in fikrada la kala qaato lacagtan bartaas ayaan ugu bixinaa waxaan qaadanaynaa GBP CHF GBP CHF bal aynu iyadana eegno GBP CHF inta noogu qor GBP CHF GBP CHF okay GBP CHF tusbadkan GBP CHF aan fiirinaynaa haddii lacag kale aad u baahan tahay inaan kuu fiiriyo waa ila soo wadaagi kartaa saaxiib inta timeka yar aan haysano waa fikirkeyga waa kugu fiirinaya waana idinla soo wadaagaya wixii kale oo maxaa la yidhahdaa aragti aan ka qabo lacagaha waa taa lacagtaa saasaan u fiirinayna GBP CHF aan fiirinayna kadibna waxaan fiirin doonaa lacagaha kale ku xigo oo GBP maxaa la yidhahdaa aan rabno inaan ogaano CHF GBP okay iyada dailygaan tagayna dailygaa laga fiiriyaa then dailyga markaan imaano same history lacagta waxay samaynaysaa waxay ku jirtaa consolidation ay ku jirtaa consolidation waxaa la lahaa lacagta inay jiha dhan aysan u soconin saad aragtid marka koowaad aragtida koowaad aan ka haysano consolidation plus triple top plus double top ayaan haysanaa marka hal mar aan ku dul istaago triple topka iyo double topka iyo waxyaalaha aan ka sheekeynayo triple topka iyo double topka iyo waxyaalaha aan ka sheekeynayo waxay tahay NZD card waa fiiriyay saaxiib Cabdiqaaliga NZD card waa akhriyaday iyada ugu horeysay
triple top kan aan fiirin laakiin waan ku dul maraa dhib malaha NZD card waa fiirin okay lacagtan waxaa aragtaan inay samaynayso maxaa la yiraahdaa waxay samaynaysaa lacagtan jihada guud horta intaana calaamaysanaynaa I hope qadka inuu culus yahay laakiin dhib malaha I will try to fix it oo aragtaan aan filayaa lacagtan waa lacag aad u qurux badan mustaqbalna leh hal maraan waxaan fiirin doonaa weekliga hal mar fiirin doonaa waxa ka jira weekliga saan u soo ogaano weekliga lacagtan waxay sheegaysaa inay W pattern ay samayso waxa shaqeynayo waxaan isticmaali doonaa W pattern aan isticmaalaya lacagtan waxaa la rabaa in loo soo celiyo neckline kan istiraatiijiyadda waxaan isticmaali doonaa ninkii la dhahayo transparent aan isticmaalaya oo waxaad aragtaa lacagtan inay samaysatay W ayay samaysatay W waatana fartaan ayay ka samaysay lacagta waxaa la rabaa in la keeno neckline kan ilaa iyo targetka ay gaari doonto iyo meelaha laga soo celinayo ayaan isla falanqayn doonaa dailyga noo celi marka dailyga markaan nimaano dailyga inay isku wax sheegayaan ayaan ogaanaynaa then waa kasii qaadanaynaa then intaana soo gudbin ka hor waxaan ilooway weekliga inaan soo calaamaysano meesha targetka la rabo inay gaarto fibonacci aan isticmaali doonaa meesha ugu hooseysay iyo meesha ugu sareysay meesha ugu hooseysay iyo meesha ugu sareysay aan isticmaalo okay bartaan okay bartaana waxaa calaamaysanaya targetkan oo golden zone kan calaamaysanaya kadib fibonacci waa iska kansalaya dailygan u laabanaya marka dailyga I hope qof walba waxbaa u shaqeeya qofna fikirkiisa qof kale kama hor imaan karo waxaa muhiim ah qof walba wuxuu u shaqeeya inuu ku xamaasho oo wax ku fahmo dan dailyga waxaad aragtaa lacagta tan bartan targetka ay imaan doonto waa meesha la filayo meeshan 1.19511 meesha ay ku qoran tahay targetka laga rabo inay imaato waa lacagtan waxay samaysay pattern within pattern ayay samaysay sidoo kale waxay samaysatay wax loo yaqaano double top ayay samaysay hoostan meesha ugu hooseysa waaye laakiin hoostan ayaa ka sokaysa then waxaa calaamaysan doonaa hoostaas sidoo kale lacagtan waxay kuu soo samaysay laba taabasho yaryar ayay samaysay afarta saxtan ku fiirino labada taabasho waa kuwan bartaan ayay samaysay labadan taabasho markii ay samaysay lacagtan sel xoogan ayaa laga filayaa sidoo kale waxay ku tagtaan leenahay wax loo yaqaan ascending journal taabashadii kale waxaad aragtaa istiraatiijiyadii falcon ayaan ku dabaqaynaa waxay ku dagtaa ascending journal taabashadii kale si aad u ogaato afarta sac tag markaas aad arki doontaa ascending journal kan sida uu yahay iyo qaabka uu u shaqeynayo I hope inuu clear ay ku tahay aad u jeedid hadda okay waxaad aragtaa ascending journal kan double top weyn inuu ka koreeyo midkan uu yahay midkii yaraa lacagtaana ay almost soo samaysatay ascending journal ay ku tagto toobka labaad ama taabashada labaad ascending journal kaasna laga filayo lacagtan inay hoos u soo dhac samayso oo sel looga faa'iideysto ilaa iyo 90% rulka oo bartaan ah lacagtan waxaa laga filayaa sel aan ka filaynaa lacagtan laakiin waxaad sugtaa areadan wacdaraha ay ka dhigto kandalka ugu horeeya kandaladii wax kala wareejinaya areadan haddii aad ku hesho waa fursad aad u wanaagsan lacagtan sel ayaa looga soo faa'iideysanaya ilaa iyo waxaad la soconaysaa bartan I hope clear inay tahay qof walbana uu arkayo si fiicanna waxaa waaye aad ugu qanacsan tahay waxaad u jeedaa marka waxaan kala dhan iska tirtir lacagta waa kana sawirkeeda saxda ah midkaana isticmaali doontaa haddii ay bartan kuu soo jabsatana hadba qaabka u qaadanaysid adaa yaqaan haddii bartan ay kusoo jabsato dhaqaaq xoogan falaaga hooseeya ka qaado ilaa iyo structurekan la soco haddii ay bartan ay ku tagto qaab descending journal ana descendingkaas calaamayso oo waxaad u qaadataa haddana kor u qaado maybe double top kale inay inta ka samayso haddana hadba qaabka adigu soo qaadanaysid adaa yaqaano lacagta isha ku hayo lacag fursad fiican leh waaye ninkii isoo warsaday waxaan filaa inuu ka qanacsan yahay saaxiibkeena inaad clear u aragtid saaxiib lacagtan waxaad u jeedaa afarta sac inay diyaar garow ay ku jirto markay lacagta diyaar garowdana waxa waa ka faa'iideysan kartaa saaxiib waxaan filayaa yarkii soo weydiiyey GBBCHF inaad ka qanacsan tahay GBBCHF waa clear aan u malaynaa haddii aad fahan saaxiib 11 noo soo qor Allah ku siiyo cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay okay yarka kale waayo aan rabo inaan u fiiriyo aad u mahadsan tahay cabdiraxmaan saaxiib waa kuu fiiriyey fikirkayga waa kula wadaagay ayo fikirkaagana inaad ku darsatid waa kaliya idea in la kala qaato fikrada la kala qaato aad ay u muhiimsan tahay adawan lacagta kale tay ahayd aad rabtid inaan kuu fiiriyo NZD card yarkan NZD card ku laabanaya waa fiirinaya inaan sameeyo in kale NZD card
NZD CAD New Zealand iyo Canadian dollar NZD CAD inay watan tahay NZD CAD xalay mar analyze gareeyay bartii ay kasoo laaban lahayd la taagan yahay ayuu bartii aan rabay inay imaado maysan imaanin bartaana ay inaan ka qaato wali way analyze gareysan tahay waxba kama bedelin waxaad aragtaa NZD CAD waxaan ka sugaynaa sel qurux badan inay samaysato selkeedana waxay samaysataa pattern within pattern kan ay samaysatay oo ascending channel ah aad u qurux badan ay samaysatay waa kana ascending channel kana soo raraysa mid kana isku geynaysa this is ascending channel ama pattern separation sa u taqaanaan then pattern kan waxaad sugaysaa ilaa uu ka soo jabsado bartan kadibna waxaad soo qaadanaysaa ilaa iyo waxaad la soconaysaa structure-kaas iyo calaamaysan aad la socon kartaa lacagtan almost lacag sel fiican leh waaye waa laga faa'iideysan karaa laakiin waxaa muhiim ah barta markay ay soo jabsato ilaa iyo inta inaad soo qaadato ascending channel-kaas markii ay kasoo dhaxbaxdo soo qaado ilaa iyo waxaad soo qaadato maxaa la yidhahdaa structure-ka la soo socdo laakiin waxaad sugtaa ilaa inta ay kasoo dhaxbaxayso bartan ilaa ay kasoo jabsanayso haddii aad rabtid lacag safe ah waxaa muhiim ah inay inta soo jabsato markii ay bartan soo jabsato adoo u fiirinayo split numberska aan fiirino bartan ku aadan yes waa waxay u dhow yahay 50-35 ay noqonaysaa no sorry meeshan waxaa waaye 95-80 split numberska wakaas bartaana la filaa inay kasoo laabato lacag markii bartaan ay kasoo dhaxbaxdo waa qaadan kartaa ilaa iyo structure-kan waxaa la soo soconaysaa calaamaysan 90% rollka loo yaqaano NZD CAD ilaa iyo bartaas la soo soco 120kaas pip si clear waa ugu qabsanaysaa hadii ilaahay insha Allah I hope waxaan filayaa inaan wax kala faa'iideysanay hadii aad wax ka faa'iiday insha Allah one isoo qor aad u mahadsantihiin intaana kusoo koobaynaa wixii kale idea aan hayno idin soo wadaagi doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي. قولها إن رجعنا إن شاء الله.